Asalaamu calaykum. Waa mowduuciina ku saabsanaa qarxii saraha Mareykanka lagu weeraray 2001dii qaybtiisii labaad. Qaybtii hore waxaynu kaga soo hadalnay iyadoo Maxamed Cadaa iyo saaxiibadii ay ku soo noqdeen dalka Jarmalka magaalada Hamburg iyagoo ka soo laabtay dalka Afghanistan oo ay ku soo qaateen dardaarankii ugu dambeeyay ee hogaamiyaha Al-Qaacida Osama bin Laden uu siiyo. Waxa kale oo aynu sheegnay inay ku andacoodeen in baasaboorradoodii ay ka lumeen si ayna dowladda Jarmalku u arkin dalku-galkii ay ku tageen Pakistan iyo Afghanistan. Intaas kadib, qaybtan waxaynu kaga hadli doonaa qorshihii ay Mareykanka ku tagi lahaayeen dhalinyaradii reer Hamburg ee Jarmalku si ay u fuliyaan mishinkii loo doortay. Khalid Al-Mihdar, Nawal Hamzi waxay yimaadeen Los Angeles 15 Janaayo 2000, halka 18 Janaayo Marwan Al-Shahi oo ahaa ardaydii Jarmalka wax ku baran jirtay isna wuxuu dalbaday fiisaha Mareykanka laakiin isagoo ku sugan Imaaraadka Carabta. Wuxuuna noqday xubinkii ugu horeeyay ee ka tirsan unugga ardayda Jarmalka ee fiisaha dalbada. Aynu soo laabano dhinaca Jarmalka. bishii Maarso 22keedii Maxamed Cadaa wuxuu weli ku sugnaa Jarmalka isagoo emailo badan u diray iskuulada lagu barto duulimaadka diyaaradaha ee Mareykanka. 17 May 2000 wuxuu dalbaday fiisihii waana uu yimid maadaama uu ahaa arday aad waxbarashada ugu fiican kumin adkeyn safaaradda Mareykanka ee Berlin ku taala. sida laga soo xigtay warbixinada rasmiga ah, Cadaa waxa uu ka soo duulay wadanka Czech Republic sababa amni awgeed. Ramzi bin Shayba ayaa sheegi doona oo yidhi Maxamed Cadaa waxa uu ka baqay sirdoonka Jarmalka, taa beddelkeygana waxa uu sameeyay magaalada Hamburg ayuu bas ka qaatay ilaa iyo caasimadda Czech Republic ee Prague. bartaas uu ka duulay oo uu tagay ilaa Mareykanka. 3 June 2000 Maxamed Cadaa iyo Al-Shahi waxay yimaadeen dalka Mareykanka iyagoo ka karaystay hoteelo bilihii ay joogeen iyo guryo. 27 June 2000 waxa isna yimid Ziyaad Jarrah waxa uu la midoobay Marwan iyo Maxamed maadaama ay ka khibrad badnaayeen si ay u la raadiyaan iskuulka lagu barto duulimaadyada. waxaana ugu dambeyn ay ka bilaabeen dugsiga duulimaadka lagu barto ee ku yaala magaalada Florida. waxaana samaysteen akoon si lacag loogu soo diro. qaybta dhaqaalaha waxa uu qaabilsanaa Khalid Sheikh Maxamed oo soo marin jiray lacagta Dubai. waqti xaadirkan Khalid Sheikh Maxamed waxa uu ku xiran yahay jeelka Guantanamo Bay isaga iyo Ramzi bin Shayba. waxa laga soo qabtay dalka Pakistan sanadkii markuu ahaa March 1 2003. wuxuu ahaa maskaxda dhan ee kala waday hawsha Manhattan 11. dhamaadkii Luulyo Maxamed Cadaa iyo Marwan waxay sameeyeen inay kaligood duulin karaan diyaaradaha yaryar, laakiin qorshahooda taas uu ka weynaa oo waxa ay rabeen inay si degdeg ah ku bartaan duulimaadka diyaaradaha rakaabka qaada. ugu dambeyn, macalinkoodii barayay duulimaadka diyaaradaha yaryar wuxuu sheegay inaanan lagu baran karin muddo kooban diyaaradaha rakaabka ee ay u baahan yihiin waqti badan. taasina waxay sababtay inay ka tagaan dugsigii oo ay raadiyaan dugsi kale oo ay ku baran karaan duulimaadka rakaabka weliba waqti kooban. 4 Janaayo 2001 Maxamed Cadaa waxa uu duulay dalka Spain si uu la kulmo xubno kale oo shabakada Al-Qaacida ka tirsan oo hogaaminayo Ramzi bin Shayba si ay ugala wada hadlaan Manhattan 11. 17 Abriil Cadaa iyo Shahi waxay karaysteen guri ku yaala magaalada Florida. lacag dhan $840 ayay ku karaysteen oo bishii ah. gurigaas wuxuu ka saaciiday Maxamed Cadaa inuu ku soo ururiyo xubno kale oo afduubayaasha qaybta muruqa ama xooga ku muqoonin doona kabtanka diyaaradda. waliba 4 taarag oo la afduubi doona diyaaradda ciwaankeedu yahay American Airlines Flight 11. afartaas u qaabilsan waxay magacdoodu kala ahaayeen Cabdulaziz Al-Umri, Satam Al-Suqami, Wayl Al-Shihri iyo Walid Al-Shihri oo ahaa laba walaalo ah oo ka soo jeeda dalka Sacuudiga, halka labada kale ay ka soo jeedeen Imaaraadka Carabta. Marwan Al-Shahi waxa uu ka warwar qabay Ziyaad Jarrah oo aad uga da'yaraa. dhammaantood waxa uu ka cabsi qabay inuu balantay cahdii Osama bin Laden uu ka baxo oo uu fulin kari waayo. sidaas darteed waxay diyaariyeen qofkii bedeli lahaa oo ahaa Zakaria Musa oo Afrikaan ku dhashay dalka Faransiiska ahaa. ugu dambeyn uma suurtagelin. waqti xaadirkan wuxuu ku jiraa jeelka Guantanamo Bay. waxa la qabtay 16 Agoosto 2001.
22 July 2001 Cadaa wuxuu kareystay gaari saa uu uga adeegsado hawl fudaydinta dhalinyarada diyaarka u ah inay afduubaan diyaaradaha. Waxa uu qaaday Ziyaad Jarax isagoo u geeyay madaarka diyaaradaha ee magaalo xeebeedda Miami. 4 Agoost Cadaa wuxuu garoonka caalamiga ah ee Orlando uu ka doonay afduubayaal kale oo ka mid yahay Maxamed Al-Qaxdaani, walow Al-Qaxdaani laga shakiyay oo lagu qabtay garoonka diyaaradaha. Xagaagi waxaa ku soo biiray Nawaaf Al-Hazmi si uu ugala hadlo Cadaa howlaha iyo mishinka halka uu kala socdo. 23 Agoost Maxamed Cadaa waxaa lagala noqday liisanka wadida gaariga, taas oo sababteedu ahayd inuu jabiyay shuruucda wada marista markii uu soo xaadir waayay qaybta maxkamadda ee loo yaqaano traffic court. Waan isla waqtigii sirdoonka Yuhuudda ee Mossad ay CIA-da Mareykanka u gudbisay 19 nin oo qorsheynaya weerar ay ka fulin doonaan mustaqbalka dhow dalka Mareykanka. Liiska magacyada ay sirdoonka Mossad u soo gudbisay CIA-da waxaa ka dhex muuqday Marwan Al-Shahi, Khalid Al-Mihdaar iyo Nawaaf Al-Hazmi. Si kastaba ha ahaatee, isla sirdoonka Jarmalku wax ayay ka ogaayeen in arrimo weerar ah lagu qaadi doono dalka Mareykanka maadaama ay la socdeen dhaqdhaqaaqa ardadii Jarmalka wax ku baran jirtay ee Carbeed. aynu u nimaadno maalintii ka horeysay weerarkii labada dabaq ee mataanaha ee Manhattan iyo aqalka Pentagonka 10 bishii September 2001. Maxamed Cadaa ayaa Umari ka soo qaaday hoteelka Milner ee ku yaala Boston, waxayna yimaadeen aroortii xigtay cabaar 45 daqiiqo garoonka Portland ee International Jetport, halkaas oo ay kaga tageen gaarigii ay soo kareysteen. Isla waqtiga ay soo galeen gegada diyaaradaha, Maxamed Cadaa waxaa joojiyay ilaalada ama security-ga garoonka si ay boorshadiisa uga hubiyaan wax qarxa. Waqti waa iftiinka bari 2001 September, diyaaraddu waa flight 11. Maxamed Cadaa ayaa weydiiyay wakiilka tigidhaanta mudane Toheye goobta tigidhaanta ee Portland. Toheye ayaa u sheegay inuu mar labaad hubin doono marka uu gaadho Logan. Intaa kadib waxay raaceen footage Colonia flight-kaas 509 taas oo loo qorsheeyay inay ka ambabaxdo 6 buura Portland oo ay u duusho Boston. Labada afduube ee Maxamed Cadaa iyo Umari waxay haysteen tigidhaanta glaaska koowaad ee VIP-ga ah ama qaybta loogu talagalay dadka ganacsatada ah ee lacagta leh. Duulimaadkii Portland waxay soo caga dhigatay diyaaradii Boston abaro 6:45 daqiiqo. Isla gegada diyaaradaha Logan waxaa iyaguna ku sugayay 3 nin ee afduube oo ay ku jiraan labadii walaalaha ee Sacuudiga ka soo jeeday Waliid iyo Weyl iyo Satam Al-Suqami. duuliyaha diyaaradda United Airlines 175 Marwan Al-Shahi ayaa isna soo wacay Maxamed Cadaa si uu hubiyo in weerarku diyaar yahay in la bilaabo. Markay ahayd 7:40 daqiiqo, dhammaan afduubayaashu waxay saarnaayeen duulimaadka diyaaradda 11, taasoo loo qorsheeyay inay duusho 7:45 daqiiqo, laakiin waxay dib u dhacday daqiiqado, taasoo la hubinayay inay wax walba okay yihiin. Waxayna cagaha dhulka ka qaaday 7:50 daqiiqo. Gudida 9:10 ayaa ku qiyaastay inuu afduubku bilowday 8:14 daqiiqo markii ay duuliyayaashu joojiyeen ka jawaabista xarunta xakamaynta hawada. Jawaab la'aantii iyo wax yar kadib, diyaaraddii oo ka weecatay jidkii loogu talagalay. hagaag magacaygu waa Beeti, waxaan ahay kaaliyaha duulimaadka nambarka 3 ee duulimaadka 11. lambarkayga koowaad waa la tooriyay. Dib ayaa jira, qofna ma neefsan karo. waa hadaladii ugu dambeeyay ee ka soo yeedha shaqaalaha diyaaradda 11. 8:24 codka afduube la rumaysan yahay inuu yahay Maxamed Cadaa ayaa laga soo daayay xarunta Boston ARTCC. kormeerayaasha hawada waxay maqleen isagoo ku dhawaaqaya, waxaan afduubnay diyaarado kale, iska aamusa oo waad fiinaan doontaan. waxaanu ku soo laabanaynaa garoonka, qofna yuusan dhaqaaqin, wax walba way hagaagayaan. haddii isku daydaan qof inaad wax samaysaan ama dhaqdhaqaaq samaysaan, waxaad halis gelin doontaan naftiina iyo diyaaradda. diyaaraddu waxay u leexatay dhanka iyo koonfurta. markay ahayd abaar 8:37 daqiiqo, talo farahay ka baxday, waxaana la ogaaday diyaaraddii kale ee Airline 175 ee Marwan Al-Shahi oo afduubay in iyaduna ka weecatay jidkii loogu talagalay. xarunta Boston ee ARTCC waxay dhaaftay awoodoodii iyo bartakoolkoogii caadiga ahaa, waxayna si toos ah ula xiriireen taliska ciidanka waqooyi ee difaaca hawada. waxaana la diyaariyay 2 diyaaradood oo nooca dagaalka ah
15 inkastoo ay ku qaadatay ogolaansho inay helaan dagaalyahanada si ay u duuliyaan diyaaradda dagaalka laakiin nasiib darro ma aysan ka gaadhin 9 buura ah bishuna tahay 9 maalintuna tahay 11 diyaaraduna tahay airline 11 waxay gashay hawada Manhattan ee dabaqii dheeraa ganacsiga qaybta waqooyi halka diyaaradii labaad ee Marwan al-Shahina ay gashay dabaqa koonfureed okay qaybta labaad intaas inoogu dhamaatay intaan qaybta saddexaad ku kulmi doono oo kaga hadli doono 20 sano ka bacdi wixii laga dhaxlay iyo wadamadii lagu laayay ama lagu weeraray qaraxa darteed ee lagu baabiyay oo ilaa hadda ka soo kaban la haddii barnaamijka ka heshay like saar share samee haddaad nagu soo beertidna kaba si fiican assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh